wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay warsan iyo weersan noo soo wacee warsan iyo weersan noo soo wacee war wadigan warsan sheegaye ma Soomaaliland ba la aqoonsaday leen waa sheeqas waqooyi galbeed maaha iyadan kasataas warniyan warsan waa adiga sheegaye ma garow waa heshiis ka soo baxay war ama ha samaado ama ha xumaadee war waa lagu daalay ee wax ka bedelama noo wadaan waryaadahe mar hore madax dhagala abuu mujtamacu dalbaday war gudoomiyaha degmada Ceelbuur ayaa dhuusan marab laga magacaabay marka waxaan la yaabanahay cidii geyn lahayd war intooda baroogta iyo bawadaasah aanidii waramo isma aamintiyo isma urursata adduunyada rogtay halka noo abshira allow nagu abaar war sheeqow buu aala mar hore ka soo cararay kabiin waa ka soo tagay annaga xarareero goorma noogu dambeysay madax ku tiyaa naga qabsaday bari hore waligay orama buurweyn degta ma maqal war weejiid oo seen amaninka dambeyti war goorma wabxay iyo galhareer igu dambeysay aniga war annaga hadma noogu dambeysay laba saaxatay barbaraaga kula seexatay maxaa hurdada ku diiday wareedha ma maqlaysaan danaheeda markay garato iyo dawga loo marayo dood markay wadaagto heshiis gelisa diiwaanka oo daawo dhigataa ummadi dawlad noqotaa ma sha Allah Ahmed waran law Allah ka aqbalo Cabdi Qani Oromo aamin war wasiirka arimaha gudaha Cabdi Sabriye Qarafaan wasaxafadeeda ka soo baxay wuxuu yiri gobashii madaxweynuhu dhigay wali waa fidsan tahay cid soo gashana ma aragno gobol intaas oo maalmood fidsanayd booraba qariye yaa ku fariisan kara waligay gogol madaxweyne dhigay oo la soo galeyn ma maqal war Cabdi waligaas wuxuu yiri madaxweyne xaaf oday nabadeed maamulkii hore ee Galmudug ayaana hurin jiray colaada gaalkacyo war madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdi Kariin Xuseen Guuleed uu ka hadlo kay in baan ka dhageystay wuxuu yiri colaada gaalkacyo Cabdi wali yaa hori jiray wuxuuna yiri waxa nasiib dara ahayd intuu beesha caalamka iyo Soomaalida hadalka ka diiday inuu gabra amarka ka qaatay no war dagaalka tukaraq gabra muu soo gelinay beenta iska daaniyo war nimayo madaxweyne xaaf tuutii uu xirtuu ka dhaweeyay wuxuu yiri hadii Galmudug laga day way qaska xamara gubanayso xamar cadow badana cadowgiisa Allah jabshe war xaaf warka ka laabay xamar cadow ma sayratay aniga war xamarniyo xeeladeeda badan wareedha war ma haysaane xanta iyo xuuraanka markaan dhageystay saddex qodob ah dawladdu ku diidanta maamul goboleedyada qodobka koowaad wuxuu yahay maamul goboleedyadu waxay u dhaqmaan sidii dawlado madax bannaan federaalkana ma fahamsano oo siday rabaan u fasiranayaan qodobka labaad wuxuu yahay maamul goboleedyadu maaliyad bay rabaan aan xisaab celin lahayn isla xisaabtankana ma jecla sidoodaba qodobka saddexaad wuxuu yahay madaxda maamul goboleedyadu muddo kororsi bay rabaan maadaama xilli xileedkoodii gabagaba yahay niman iyo anna markaan maamul goboleedyada xansaday dawladdu waxay ku diidan yihiin laba sababood dawladdu waxay rabtaa inay bedesho madaxda maamul goboleedyada kuna bedesho madax iyaga daacad u ah qodobka labaad dawladdu waxay rabtaa in awaamirta wasiirka arimaha gudaha ay ku shaqeeyaan maamul goboleedyadu war qodob saddexaad ayaa jiro dilowday dawladdu waxay ka fakaraysaa saan u malaynayo in maamul goboleedba la iska dhaafo ilaa kuwan waa barasaabye war ma ogidine qodob afraad baa ilowdeen madaxweyne ma amro barasaab ma amro marka in nimankan magac kale loo yeelo ayaa laga fakiraya lagu munaqashoonaya war qowdhanow qodob shanaad baad ilowday dawladdu waxay rabtaa inay maamul goboleedyada Soomaaliland ku soo darto no warniyo malakani waa habaaray goorman maamul goboleed ka tagnaniyo oo ka shaqaafina waxa la sheegayso warnimada wasiirka hurday oo dastuurka Soomaaliya madaxda looga dhigay nin hurday cidii wax u dhiibatay ayaa hurdaysay war wasiirka xoosh Jabriil baa la yiraahdaa dhageyso dastuurkii kambani aan la aqoon ba u dhiibaa la yiri war kambaniga aan la aqoon waxa loo dhiibay dastuurkii ma aha ee waxaysiintiisii marba hadii xayisiintiisii loo dhiibay asagii oo dhan ba loo dhiibay maxaa dhiman war adinku dastuurka laftiisii miyaad aragteen oo cid loo dhiibay taqaanin dastuurkii 60kii waa qoran yahay anaana arkay waradeero dastuurka Soomaaliland shacabka u codeeyay
naga daniyo kaasi waa handaraab loo kale war baydhaw liyaabi maykidhi soo salaad gudhu war dhagaysa lafta gareena seedi baydhawa buluburuufi iyo ciidamada daboolan iyo diyaarada likijeey may ku waraytansan marka doorasho xalaalaan sugteen ariinow surung diyaaradu weynan badana lagu qaaday bilad buruufyada iyo ciidamada daboolan matii korneel qadaafiya warniyo waa tii Saddam Hussein niyo war waxaasoo dhan maaha waa tii Marshal Farmaajo war waa tii General Khayre waana horumar ay gaartay nabad iyo nolol qadiijo waxayna tiri farmaajo Khayre ka hor dadkeenu waa qadahayeen war Axmed Madow wuxuu yiri madaxdaanu say u joogeen ayay keeneen hortaan dawlad ma jirin war Axmed Madow baan buu naga sheegay ilaa iyo cartaan ikhlaaska u aqrinay habeen kasta war aqalka sare kuma qancin warkii ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayna jawaab ka rabaan war Cabdi Xaashi warkaas kama maqline hanamina dadka war aqalka sare Cabdi Xaashi kaliya ma aha waa badan yihiin xildhibaanadu warniyo Soomaaliland ma ku jirtaa nimayow war nimayow waa yaabay aaway horta lacagta imaaraadka war mid qadar ataale maxaa ka rabtaa imaaraadka war naga tago annaga naga tag calooshu ku tabartay